وعنو wanaagsan daawadayaal mar labaad halkani waa magaalada taariikhiga ah ee Taleex oo iyadu xudun u ahayd halgankii xoogagii daraawiisheed ay la galeen isticmaalkii kala gedisnaa ee qarbiga ahaa iyo waliba kuwa Afrikaana oo dalka ku soo duulay sanadihii 1895 ilaa 1921 waxay ahayd muddo dheer oo ciidamada daraawiisheed oo horkacayo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay kula jireen halgan dheer oo ay kaga xoreynayeen isticmaalkii Ingiriiskii Talyaaniga iyo waliba Xabashida waxaana uu xarun ka dhigtay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magaalada Taleex oo iyadu ka tirsan gobolka Sool sabaha uu markaasi sayidku u eexaystay in Taleex ay noqoto xarunta halgankii uu kula dagaalamayay isticmaalka daraawiisheed ayaa waxay ahayd iyadoo ay nugaali markaasi ahayd dhul ku fiican gamaanka iyo waliba daaqsinka kalaba waxa kale oo sayidka soo jiitay isagoo markaasi qaraabaysanayay ama ku soo dhaweynayay abtiyaashii oo iyagu ku dhaqanaa deegaankaasi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan xaruntan uu ka samaystay ama saldhigga weyn ee uu ka dhistay magaalada Taleex waxa in muddo ay daraawiish isku taxallujinaysay sidii ay markaasi u samaysan lahaayeen gabaad adag oo ay kaga gaban karaan haddii ay isku dayaan inay soo weeraraan xoogagii isticmaalka ay la dagaalamayeen waxa in badan oo dadweynaha ku dhaqan magaalada Taleex ay markaasi og yihiin in marka la soo qaado magacyada daaraha caanka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu ka dhisay Taleex oo ay kamid yihiin daar ilaalo falaad silsilad iyo waliba daarcad ay markaasi dugsanayaan taariikh weyn waxa kale oo reer Taleex ay markaasi xusuustaan ama ay og yihiin in goobaha lagu hirdamay ay daraawiishi kala hortagtay halgankii hubaysnaa ee isticmaar kula jirtay oo ay kamid yihiin Fardidin Afbakayle Beerdhiga Cagaarweyne Daratoole Taargooye Jidbaale iyo Jiidali iyo waliba Midhashi goobta lagaga duulayay Ingiriis iyo xoogagii la socday xulafadiisa ahaba ay ahayd magaalada Taleex si kastoo yahaataba waxa magaalada Taleex ka muuqda markasta ama marka aad soo gashid sarihii dhaadheera ee ay daraawiishi ka dhiseen halkaasi inkastoo ay diyaaradihii Ingiriiska ee DH9 loo yaqaanay ay bamgareeyeen madaafiic iyo girligan xoog lana la dhacay misana sarahaasi wali ma aysan liicin waxaanay u dhisan yihiin sidii loo dhisay inkastoo aysan jirin cid markaasi isku taxallujisay in dayactir ay ku samayso taariikhdaasi maguurtada ee shacabka Soomaaliyeed leeyihiin misana reer Taleex waxay wali ku hamiyaan in maalin maalmaha kamid ah ay dhalan doonto dawladiyadu markaasi daryeesha taariikhaha noocan oo kala ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ma dhisin oo kaliya goobihii militariga daraawiisheed ay kaga duuli jireen isticmaalka Ingiriis balse waxa uu xusay ama uu dhisay taalooyin ay ku aasan yihiin ama ay ku jiraan qaar ka tirsan qoyskiisa iyo waliba culimaawidiinkii iyo qaadiyaashii daraawiishta markaasi diinta bari jiray waxaan halkaasi ka muuqda qudbiyadii uu u dhisay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan saddex wadaad oo ka tirsanaa ragga iyaga daraawiishta markaasi diinta bara isla marhantaasina dumarka ku meheriya oo kamid ahaa qaadigii caanka ahaa ee Sheekh Cali la oran jiray qabrigii Caroseed oo ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hooyadiis iyo waliba Maryama oo ahayd xaaskii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa iyaga la fahaantoodu ah saraha dhaadheer ee ka muray magaalada inteeda kale dadkuna ay isweydiiyaan tiknoolajiyada iyo waliba habka xilligaasi loo dhisay halka ay daraawiishi kala timid degmada Taleex waxa ka jira iskuulo kala gedisan ugu yaraan ilaa iyo 400 oo arday oo u qaybsata dugsiyada sare hoose iyo dhexe ayaa haatan wax ka barta haddaba su'aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay reer Taleex ma og yihiin masal la socdaan
hidaha iyo taariikhdaasi dhaxalgalka ee xoogagii daraawiishadii awoowayaashood ay uga tageen. waxaa jirta in ardada intooda badan loogu dhigo taariikhda halgankii Soomaalidu ay u soo gashay xorriyadda ay ku naaloonayso. waxaa kaloo jira dhalin badan oo iyagu aan waxbarasho helin hase yeeshee qaab sheeko ahaana loogu soo gudbiyey halgankii dheeraa ee daraawiishi la gashay isticmaalkii kala gedisnaa ee dalka soo hujuumay qarniyadii la soo dhaafay. abwaan maxamuud cawil guuleed waxa uu ka mid yahay abwaanada ku kacaamay degmada Taleex iyo nawaaxigeeda, waxaana uu ka hadlayaa mawtixdan gabayga ee soo socota uu ku muujinaya xogta uu ka hayo taariikhda iyo dhaqanka ay leedahay degmada Taleex. الله هوي هويالاي هويالاي هوي هويالاي 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 هوي هويالاي 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 هوي يخيار يا هودايو فديدا قلك هوستيسا وحدا حدولا نورور هينيغو افقاديني عوابا وحيدين انفع من كولولي البابا تليحيو دقمدا وروركا تاريخدا ingiriisku meeshuu ka baqay ee yardeegisteeda halkii aqalka gobanima u diriir lagu ilaaleeyey efentariga meeshii la yidhi ugu olmayn mayno efentariga meeshii la yidhi ugu olmayn mayno halkii erbiriilada la yidhi amargantaaleeya afrikaba shisheeyaha halkii kaga ilmaysiisay halkii ereyga diintiyo sharciga loogu imanayey su'aaliyo jawaab adag markuu shiikhu ku adkaystay anaa meheriyo furay markii uunku wada yaabay asariyo halkay PhD oodii kari weydey ammaantiyo tahniyadiyo halkay ubaxanoo keentay cabdi bile halkii uu ahaa axaala duugiisu cabdi bile halkii uu ahaa axaala duugiisu. haddii baynu soo qaadnay magaalada Taleex oo aynu nidhi waxay ahayd xaruntii halgankii hubaysnaa ee daraawiish ay kala hortimid isticmaalkii reer galbeed ee qarniyadii la soo dhaafay ku soo duulay dalka Soomaaliya. su'aasha meesha taala ama isweydiintu waxay tahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan maxay ahayd fariinta uu waday, maxayse ahayd xamaasadda uu la yimid dalka. axmed aadan cali oo Taleexi ku magac dheer waxa uu ka mid yahay rugcadaaga sida weyn u dhuuxay isla mar ahaantaasina uga baaraandegay taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waxaana uu ku sugan yahay degmada Taleex. ugu horreynba waxaan weydiinay bal fariinta uu siday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo shucuurtiisu siday ahayd markii uu dalka uu ka soo degay. isaga oo xambaarsan xamaasad gaala nacayb ah oo ujeeddadiisu ay tahay in gaalada laga saaro wadamada islaamka ama wadanka Soomaaliya. rag badan oo gaalada markaa ku xidhnaa ama dareynayay bay iskaga hor yimaadeen. magaalada berbera xoogaa dhaqdhaqaaqa iska horimaada ka dhacay oo ka soo baxay. wuxuu soo aaday dhulkii uu markii hore ku barbaaray oo dhulka dhulbahantaha ahaa meel caynama u dhow oo qoryo weyn la yidhaahdo ayuu xarun ka sameeyey. wadaaddo badan iyo dad badan oo fidaaniina oo diinta ka dhaadhiciyey ayaa isugu yimi. muddo 2 sannadood halkaa ayaa xarunta ahayd oo la deganaa, hoosooyin laga dhisay, lagu raaco diinta, kutubta lagu marsado, dadka lagu fidiyo. sideedana sannadaha hore sayidka baaqiisu wuxuu ahaa inuu dadka wacyi geliyo oo nacayb gaaladu leedahay ku beero oo markaa dadku gilgisho. dadkaas oo sida aad ogtihiin diinta islaamka jasiiradda carabta markay ka soo fiday waayadii hore way tanaaday oo raggii hoggaanka u hayay dhul badan buu gaadhsiiyey. mar labaadkii gadaalkii ayaa carabtii dabiciday laga adkaaday. waxaa lagu soo noqday dhulkii dadka islaamka ah inaanay mar dambe diintu ka soo kicin oo dad u gilgilanaya uusan ka dhalan. taasaa isticmaalku ilaalinayay reer yurub. dabadeedna markaa sayidka iyo rag dhowr oo la mid ah baa wakhtigaa ka gilgishay arrintaa. isagoo wuxuu doonayay inuu Soomaaliya ka saaro gaalada.